والعيارات aad u xiiso badan ayaa galabta halkan ka dhacay waxaana uu ahaa wajiga labaad ee horyaalka kubadda gacanta Soomaaliyeed waxaana is wajahay gabdhaha Heegan iyo sidoo kale gabdhaha kubadda gacanta xarunta barbaarinta booliska Soomaaliyeed labada kulan ayaa markaasi waxay soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan iyadoo kulankii hore ay markaa adkaadeen gabdhaha Heegan halka kulanka labaad uu markaasi laga adkaaday gabdhaha xarunta barbaarinta booliska Soomaaliyeed ciyaarahan ayaa markaasi ka duwan ciyaarihii hore labada kooxoodba ay soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan walow kooxda Heegan gabdhooda ay diyaar garow xoogan ee ka muuqday iyagoona sanadkan ay yihiin hogaamiyaasha tartankani sidoo kale ciyaarta markay idlaatay ayaa waxaa soo nala hadlay Sucaad oo markaasi ka mid ah halyeeyada kubadda kolayga walow ay galabta ciyaaraha kubadda gacanta ay hayeen waxayna ka warbixisay ahmiyadda iyo sidoo kale horumarka ciyaaraha ee kubadda gacanta dhammaan xiriirada kale ayay markaasi la dardaarantay inay horumariyaan ciyaaraha dalka bismillaah assalaamu calaykum magacaygu waa Sucaad Cabdilaahi Galow waxaan joogaa Wish Stadium haddaan wax yar ka xasuusto Wish Stadium waa meeshii ugu horeysay aan ku safto inaan professional basketball noqdo waa meeshii aan qaranka Soomaaliyeed ku midhelay waa garoonkii aan waxbarasho ka helay wadanka Mareykanka jaamacad ku taalo Washington DC maanta aniga waxay ii tahay farxad aad iyo aad u wanaagsan inaan imaado daawado horumarka ay sameynayaan xiriirka kubadda gacanta ee Soomaaliyeed waana wax mudan ku dayasho ciyaaruhu maxay muhiim u yihiin maxaa loo qabanayaa ciyaaruhu waa isdhexgalka bulshada waa nabadeynta deegaanka waxay ku sameynaysaa walaalo badan oo kala duwan waxay yareynaysaa qabyaaladda iyo caadifada ayay yareynaysaa waxa loo baahan yahay kubadda kolayga haday tahay orodada haday tahay tenniska haday tahay hamo in la qabto kubadda ciyaaruhu maskaxda iyo jirka bay dhisaan maskaxda markay dhisaan waxa soo baxda arday aan wax loo sheegan karin iyagu wax sheegaya physically markay jirka ka dhismaana waxay noqonayaan dad aan lagu khasbi karin awoodooduna aan isbedeli karinin marka maanta aniga Sucaad ahaan waxay ii tahay farxad waxaan ka codsanayaa xiriirada kubadda Soomaaliyeed oo dhan in ciyaarahan oo kale la badiyo la xoojiyo si aynu dhalinyaradana uga badbaadino falalka khaldan ay ku kacayaan dhalinyaradu waa xoog soo baxaya haddaan lagu jahayn meel ay jirto farxad xooga soo baxayana ay ku burburiyaan waxay aadayaan meelo khaldan waana waxa wadankeeni dib u dhigay haddii maanta la soo celiyo waa farxad waa rayrayn ku faraxsanaa annaguna waxaan u soo noqonay inaanu garab istaagno cilmigayaga iyo caqligaygana uga faa'iideyno assalaamu calaykum sidoo kale kooxda barbaarinta ee booliska Soomaaliyeed ayaa iyagana waxay guuldarada kadib soo gaaray nala hadla mid ka mid ah ciyaartooydooda iyagoona sheegay inay aad markaasi u riyaaqeen waxayna doonayaan in ciyaaraha isbedel ay ka sameeyaan wareen ku soo dhaw Helen TV bal ka waran ciyaarta maanta ciyaarnay maasha Allah horta way fiicneed laakiin waxaan u imaaday guuldaro dhib ma lahan waa ka soo kabsanaynaa in badan insha Allah inta ciyaarayseen halkoona guuleysateen horseeda la ciyaar doontaan dhawaan maxaa filaysaan marka inay guuleystaan horseeda dal ciyaarin waxaa filaynaa insha Allah inaan guuleysan doono ciyaartooy ka tirsan kooxda Heegan ayaa iyadana nala hadashay oo markaasi ka warbixisay guusha galabta ay gaareen iyo hamiga horyaalka ay kala yihiin ugu horeen Helen TV ku soo dhaw bal ka waran kul ciyaareedka maanta ciyaarteen waa ku faraxsan hortiina maanta wareysi ay qaadaysiin guusha maanta gaar waa ku faraxsanahay anoo Heegan ka socdo oo uu gabadhu gudda yar TV-gii ay wareysi iga qaadeen waa maasan yahay wajiga labaad horyaalka hogaaminaysaan maxaa rajeynaysaan insha Allah waxaan rajeynaynaa guul hadda guul waa soo gaarno guul kale insha Allah waan rajeynaynaa waxaan rajeynaynaa guul dhaaftina insha Allah laba kulan aan harsan waana ilaas iyo sidoo kale horseed maxaa ka rajeynaysaa insha Allah guul ka rajeynaa waxaana tartankan uu yahay mid aad u xiiso badan waxaana ka harsan oo kaliya wajiga labaad saddex kulan kooxda Heegan waxa u harsan kooxda ilaas iyo sidoo kale kooxda horseed oo dhawaan ay la ciyaari doonaan waxayna ka mid yihiin tartanka yaana ku guuleysan kara sanadkan horyaalka kubadda gacanta maadaama Heegan wili ay si ambition ay ku hayaan iyagoona doonaya in sanadkan mar kale guul ku soo celiyaan Guleeda Cali Cusmaan Muqdisho